السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقيبتي لبعض برنامجيدي aynu ka soo qaadanaynay taariikhda daraawiisheed iyo halgankii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan sanad guurida boqolaad ee markii la jibiyay halganka daraawiisheed. Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo imaatinkiisii magaalada Berbera. Sidii aan qaybtii hore ku soo sheegnay, Sayid Maxamed Cabdulla Xasan markii uu ka soo laabtay dhulka barakaysan ee Makka al-Mukarrama iyo Madiina al-Munawwara ee uu soo gutay waajibaadkii xajka, soona qaatay dariiqada saalixiya oo uu doonayay inuu ku fidiyo dhulka Soomaalida, ayaa waxa uu Sayid Maxamed Cabdulla Xasan muddo 2 bilood ah kadib oo ku sugnaa magaalada Cadan u soo anbabaxay dhinaca iyo magaalada Berbera. Berbera waqtigaasi waxay ahayd magaalo filweyn oo magac dheer. 1884 ayaa gumaysiga Ingiriisku maamulkeeda qabsaday, waxaana uga horreeyay khulafadii Cusmaaniyiinta oo ka dhisay magaalada Berbera masaajida iyo meelo cilmiga lagu barto, gaar ahaan diinta Islaamkana tusaale u ah. waxay kaloo ahayd magaalada Berbera magaalo ganacsiyeed adduunka oo dhan caan ka ah, furana u ahayd badda cas iyo maranbiyoodka Baabal Mandab. xagga berrigana aan magaalooyin kale ka xigin magaalada Adari ama Harar mooyaane waqtigaasi. Soomaalida badankeedana magaalay u ahayd oo meel kasta waa ay uga soo safri jireen. sidaa daraaddeed ayaa waxaa lagu tilmaami jiray magaalada Berbera in ay ahayd magaalo badda iyo berrigaba u furan oo culimo iyo caamanin waliba yimaado. Xaaji Maxamed Sayid Maxamed Cabdulla Xasan intaanu iman waxa magaalada Berbera joogay guuto culimo ah oo dariiqada qaadiriyada u badan. inkastoo dariiqada Ahmadiya ay dalka Soomaalida xoog ku lahayd, haddana geesta waqooyi itaal weyn kuma lahayn, in yar oo laanta Andrawiya kamid ahayd oo Berbera joogtay mooyaane. Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo dariiqada saalixiyada wata ayaa Cadan dooni ka soo raacay 1895 waxaanu ka soo degay marsada magaalada Berbera. sida ay taariikhyahanadu wariyeen, markii uu xeebta yimid oo damcay alaabtiisii inuu qaato, ayaa nin gaal ah oo Ingiriis ah oo dekada ka shaqaynayay waxa uu ku yidhi, alaabta cashuur ka bixi, adiga oo aan cashuurtii bixin alaabta qaadimaysid. taasi Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waxay ku noqotay layaab iyo fajiciso. hase ahaatee wuxuu ku yidhi, adiga yaa cashuur kaa qaaday markii aad halkan ka soo degtay? waddankase ma adigaa leh, maxaad cashuur iigu weydiinaysaa? ninkii Ingiriiska ahaa waxa uu damcay in uu ninkaasi amarkiisa diiday xidho. hase ahaatee turjubaankii iyo rag kaleeto oo meesha joogay ayaa ka maslaxay oo waxay ku yidhaahdeen, wadaad waalan weeye, iska dhaaf. sidani saaxiibayaal waa sida ku qoran buugga uu qoray allaha u naxariistee Awjaamac Cumar Ciise oo taariikhda sayidka muddo dheer dabagur ku sameeyay. buugga uu qoray Awjaamac Cumar Ciise ee ka warramaya taariikhda sayidka waxa uu ku sheegay in magaca The Mad Mullah ama wadaadkii Wallah uu halkaasi markii ugu horreysay ugu baxay sayidka. dabadeedna ninkii gaalka ahaa isagoo hadalkiisii la yaabsan ayuu faraha ka qaaday. Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waxa uu degay magaalada Berbera, waxaanu guursaday afal la odhan jiray Barni Xirsi oo u dhashay wiilkii carruurtiisa ugu weynaa oo lagu magacaabi jiray Mahdi Sayid Maxamed Cabdulla Xasan. wuxuu halkaa ka abuuray majlis weyn oo dariiqada saalixiyadu leedahay oo ijaasada lagu bixiyo, wuxuuna bilaabay wacdi iyo waana fara badan oo diinta Islaamka fidinteeda iyo ammaanta dariiqada saalixiyada ku saabsan. taasina magaaladii waxay gelisay bulaan iyo buuq iyo xiisad hor leh. wadaadadii qaadiriyada ahaa ee hore magaalada u deganaa waa la isku mandhaafay arrinkaasi, maxaa yeelay wadaadada qaadiriyadu ma ogolayn in dariiqo cusub waddanka la soo geliyo. hase ahaatee markii dambe waxay noqotay in la wada hadlo, kutubtana la isu soo gurto oo masalooyin diinta ah la isla eego. culimmadii markaa Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ka soo horjeeday ee ku sugnaa magaalada Berbera waxaa ka mid ahaa sheekh lagu magacaabi jiray Cabdillaahi Caruus, Sheekh Ibraahim Xirsi Guuleed, Sheekh Kabiir Aw Cumar, Awgaas Axmed iyo culimo kale oo fara badan. Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waxa uu ahaa nin aftahan ah oo siyaasad badan dadkana soo jiidan og. markiiba magaaladii Berbera waxa uu ku yeeshay saaxiibo u heelaya, kuwaasi oo garab taagan iyo xer badan oo uu diinta u mariyo oo isaga gaar u ah, iyo rag kale oo isla markiiba dariiqadiisii saalixiyada si weyn ula dhacay ama qaatay. buuqii iyo doodihii fara badnaa ee magaalada Berbera ka taagnaa waxa gaasta iyo kabriidka ku sii kordhiyey markii uu Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ku dhawaaqay in qaadka cunidiisu uu yahay xaaraan, sidoo kale in gaalada macaamiil ama xidhiidh lala yeeshaana ay tahay arrin xaaraana. arrintaasi oo culimmadii magaaladaasi ku sugnaa aanay jeclaysan, iyagoo ka cabsi qaba inuu kacdoon ka hor yimaado wadaadada. 1891 ayaa wax magaalada Berbera ka soo degay howlgal Kiristaan ah oo diinta Masiixiyadda lagu fidinayay, gaar ahaan madhabteeda Kaatoliga oo magacooda la odhan jiray French Roman Catholic Mission. waa howlgalkii Kaatoliga ahaa ee Frenchka, waxaana madax u ahaa baadari magaciisa la odhan jiray Father Cipriana. dhalashadiisu waxay ahayd ninkan waddanka Belgium. dabadeedna magaalada Berbera gudaheeda
iyo 2 meelood oo dibadda ka ah oo la kala yidhaahdo Dhaymoole iyo Mijcaseeye ayay ka fureen dugsiyo carruurta Soomaalida diinta Masiixiga lagu baro. mishankani ama howlgalkani waxa uu ka faa'iideysanayay maxmiyadda Ingiriiska ee dhulka haysatay. Sayid Maxamed Cabdulle Xasan aad buu gaalada gumaysiga ah iyo waxyeeladoodaba wax uga sheegi jiray waqtigaasi, dadkana waa uu ku kicin jiray ugana digi jiray. iyadoo arrintii halkaasi taagan tahay ayaa waxa dhacay arrin fool xun oo Sayid Maxamed siyaasadiisii aad u taageeray, isla markaana magaalada Berbera dabayl ka kicisay. waxaa jirtay in Turkidii xeebta Makhirkoos u talin jirtay 1865 ka hor ay magaalada Berbera ka dhiseen daar weyn oo dawladdu leedahay oo masaajid ku dhagsan. dabadeedna daartii waxa degay nin Ingiriis ah oo ka mid ahaa Ingiriiskii dhulkeena qabsaday. masaajidkana ay jaar ahaayeen daartaasi. masaajidkuna uu ahaa mid ku dhagsan ama deris la ah daartaasi dawladdu lahayd ee ninka caddaanka ahi degay. masaajidka sida ay caadada muslimku tahay waa in laga aadaamaa 5 waqti ee salaadaha, halkaasi oo lagu tukan jiray. dhowr goor ninkii gaalka ahaa waxa uu ka cawday oo culimadii la hadlay isaga oo ka dalbaday in ay qaylada ka daayaan. hase ahaatee hadalkiisii dhig looma jalaqsiinin. ninkii gaalka ahaa maalintii dambe waxa uu xabad ku dhuftay ninkii wadaadka ahaa ee masaajidka ka aadaamayay ee mu'adinka ahaa. arrintani aad bay magaaladii Berbera u kicisay. Sayid Maxamed wixii uu sheegayay ay markhaati u sii noqotay oo halkaasi taageero xoog leh ayuu ku helay. isagana waxay u sii kordhisay calool xumo iyo cadho weyn oo uu ka qaaday ninkaasi wadaadka ahaa ee Ingiriisku toogtay. hadallo waaweyn ayuu magaalada Berbera waqtigaasi kaga dhawaaqay, wuxuuna dadkii ku guubaabiyey oo ugu baaqay in ay gaalada la dagaalamaan oo ku jihaadaan. hase ahaatee niman la shaqaynayay Ingiriiska oo ku sugnaa magaalada Berbera maamulkoodana ka agdhowaa ayaa waxay ku baaqeen in aan wadaadka hadalkiisa la maqlin. arrimaha weli raadkoodu sii nool yahay oo aan weli la ilaawin waxaa ka mid ah wadaad la odhan jiray Awgaas Axmed ayaa markii uu hadalladaasi Sayid Maxamed Cabdulle Xasan ka sheegay magaalada Berbera waxa uu ku kiciyey dadkii. iyada oo arrintaasi haddaba ay sii socoto xaajaduna ay qasan tahay ayaa Sayid Maxamed Cabdulle Xasan waxa uu goostay inuu magaalada Berbera ka baxo markii ay xaaladdu ku xumaatay. inkastoo ay dadka reer Berbera aad u soo dhaweeyeen, haddana Ingiriiska oo xeelado badan isticmaalayay waxa uu keenay inuu dadka qaarkood ku diro Sayid Maxamed Cabdulle Xasan. ujeeddada ugu weyn ee Sayid Maxamed Cabdulle Xasan u doonay inuu magaalada Berbera ka baxaa waxay ahayd in uu doonayay inuu u gudbo dhinaca baadiyaha. ujeeddada ugu weyn ee uu baadiyaha ama reer miyiga u doortay waxay ahayd 2 arrimood. kow, waqtigaasi Soomaalidu 99% waxay degganayd goobaha miyiga. dadka baadiyaha degganaa Ingiriiska wax xidhiidh ah ama heshiis ah kama dhaxaynin. qodobka labaad ee Sayid Maxamed Cabdulle Xasan ku doortay inuu Berbera isaga guuro oo uu miyiga tagaa waxay ahayd reer miyiga maskaxdooda lama qaldin oo gumaysiga iyo xeeladihiisaba waa ay ka fogaayeen. xaajiguna ujeeddadiisa wuu dhacsiin karayay. intaas kadib 1897 dabayaaqadiisii ayaa Sayid Maxamed Cabdulle Xasan ka baxay magaalada Berbera isagoo kooxooda da'ahi la socdaan, wuxuuna sii maray goobihii howlgalka Kiristaanka ama mishanku deganaa ee aynu soo sheegnay, isagoo doonaya inuu ogaado heerka arrinkoodu marayo iyo shaqada ay halkaasi Ingiriisku ka wadaan. waxaa la wariyaa in Sayid Maxamed Cabdulle Xasan uu u yeedhay wiil yar oo ku jiray dugsiga mishanka oo uu ku yidhi magacaa. wiilkii yaraa waxa uu ku yidhi magacayga waxa la yidhaahdaa John Cabdilaahi. dabadeedna yaa tahay buu ku yidhi. wiilkii yaraa wuxuu ku yidhi reer faadar baan ahay. halkaas waxa uga caddaatay in diintii la beddelay, carruurtiina la magac dooriyey, dalkiina la qaatay. taarikhyahankii Douglas Jardine oo arrintaasi ka warramayey wuxuu yidhi dacaayadda fidinteeda waxaa si weyn u caawiyey howlihii baadariyada Kaatoliga Faransiiska ee Berbera fadhiyey oo cunto iyo tacliinba siinayay carruurtii dalka ee bakhtiyeysay oo aan hoyga haysan si loogu ababiyo diinta Kiristaanka. markii uu meelaha indheeyey Sayid Maxamed Cabdulle Xasan hore ayuu u sii dhaafay oo wuxuu tagay magaalada Sheekh oo dariiqo Axmediye ahi deganayd. culimadii joogtayna wuxuu kala hadlay gaalada diinta Masiixiga ah faafinaysa ee doonaysa inay diinta Islaamka beddelaan. shacabkii aad bay u soo dhaweeyeen, waxaanay ku baaqeen in la iska kiciyo dadkaasi doonaya inay diinta beddelaan. intaas kadib Sayid Maxamed Cabdulle Xasan waa uu soo dhaafay dariiqada Axmediya ee deganayd degmada Sheekh, waxaana u gudbay dhinaca iyo deegaanka Burco oo markaa ahayd ceel xooluhu ka cabaan. dabadeedna wuxuu u dhaafay dhinaca Oodweyne oo uu kula kulmay Suldaan Axmed Ammaan oo dalka wakhtigaasi magac weyn ku lahaa. halkaasi si wanaagsan ayaa Sayid Maxamed Cabdulle Xasan loogu soo dhaweeyey, suldaankiina waa ay safkarteen. degitaankii Sayid Maxamed Cabdulle Xasan ee deegaanka Qoryoweyn
waa ceel magaalada Caynaba geesta galbeed ka xiga oo hilaada 29 mayl u jira oo aan sidaasi biyo badan u lahayn. Sayid Maxamedna halkaasa ugu horeysay meel uu daraawiish aasaaskeeda ka bilaabo dariiqada saalixiyana ka fidiyo. 1898 ayaa Sayid Maxamed ceelkaasi qoryo weyn mawlac lagu tukado kutubtana lagu raacdo ka dhisay. Muddo gaaban kadibna wuxuu u rogay masaajid weyn wuxuuna dadka ugu baaqay in diinta la barto dariiqada saalixiyana la galo xoolahana siyaaro laga bixiyo daraawiishna la noqdo. wuxuuna bilaabay wacdi iyo wax ka sheegid gaalada ka soo horjeeda si dadku u garto ugana digtoonaado gumaysiga iyo waxyeelada uu leeyahay. muddo gaaban gudaheed dad fara badan baa u riyaaqay dariiqada saalixiya waa hirgalay. magaca daraawiish la yidhaahdaana halkaasi deegaanka qoryo weyn ayuu markii ugu horreysay ka hirgalay. dadkiina wuxuu siiyey duub cad iyo tusbax kuuk loo yaqaanay. dikrigii dariiqada saalixiya iyo tawassulkii Sheekh Maxamed Saalax astaanta u ahaa ayaa halqabsi waxa uu noqday shalilaaya Sheekh Maxamed Saalix almadadiya ibnu Saalix iyagoo ku tawassulaya wadaadkii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ka soo qaatay dariiqada saalixiya ee ku sugnaa dhulka Xijaas ee dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya. arrintani waxay dhalisay inay meeshii xarun noqoto oo culimo iyo caamo nin waliba yimaado isagoo reerkiisii wata diintana baranaya. markii reer baadiyihii uu dhex degay wuxuu ku dadaalay in uu xumaantii dadka ku kala dhex jirtay ka saaro oo heshiis iyo walaalnimo dhex dhigo. arrintaasina aad baa loogu jeclaystay. waxaaba la yidhi ninkani waa weli ilaahay ummadda u soo diray. Sayid Maxamed waxa uu gaar ahaan u muujiyey baahida uu u qabo hub iyo farda inuu helo wuxuuna dadka ku waaniyey ninkii diinta daacad u ahaw ama janno doonayow bunduqaaga iyo faraskaaga dariiqada keen. xeeladda labaad oo la yaabka leh oo uu ku kacayna waxay ahayd ninba ninkuu ka waxtar roonaa ayuu si wanaagsan u soo dhoweeyey oo gacanta qabsaday. 1899 waxaa dhacday sheeko la yaab leh. waxaa la yidhi dhowr nin oo ilaalo ah oo ciidamada Ingiriiska ka tirsan ayaa Sayid Maxamed u tegey. nimankaas lama oga in Ingiriisku soo diray iyo in kale. markuu sooriyeeyey aadna u maamuusay ayuu ku yidhi dabkaad sidataan gaalaa leh ee maa daraawiish kaalmo u siisaan ama naga iibsataan. dabadeedna nin ragga ka mid ahaa oo la odhan jiray Ducaale Xirsi ayaa hadalkii sayidka u guuxay oo bunduqiisii ka iibiyey isagoo oo sayidkana ka qaatay 4 geel ah. ragga taariikhda qora waxay sheegaan in markii ninkaasi ku noqday dadkii soo diray uu uga warramay in bunduqii uu sitay Sayid Maxamed xoog kaga qaatay. si kastaba arrintu ha ahaatee waxaa hubaal ah in bunduqii sayidka gacantiisa galay. sida runta ah hubka ay daraawiishi ku dagaal gashay badankiisa waxay ka furteen ciidankii Ingiriiska gaar ahaan labada goobood oo kala ahaa Beerdhiga iyo Cagaarweyne. bunduqaasina wuxuu ahaa kii ugu horreeyey ee gacantiisa soo gala marka loo eego hubka ay furteen. ninkii magaalada Berbere Ingiriiska u fadhiyey waraaq eriyo kululi ku qoran yihiin oo uu bunduqaasi ku doonayo ayuu sayidka u soo diray. sayidkuna wuxuu ugu warceliyey waraaq la mid ah oo uu bunduqii ku diidaya inuu dib ugu celiyo. saaxiibayaal qaybteena labaad ee barnaamijkeena taxanaha halganka daraawiisheed halkaasi ay noo joogeen inagoo qaybta saddexaad ku soo qaadan doona arrimo kale oo xiise leh. tan iyo kulanti kale. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.